haddii raggii ka horeeyaan resumtiika ahay ee markaas ayaga final la geeyeen idinka markaan waxaan ka sugnaa waa koobka insha Allah ta'ala waa qaadootin koobka aan keenadan haduu ilaahay isbedel ayaa ku yimid jadwalka tartanka xulalka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika ee ku qabsoomaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaana tartankan kaliya ka qayb galaya wadamada kale ah Ethiopia, Tanzania, Soomaaliya, Uganda, Burundi iyo Koonfurta Suudaan waxaana xidigaha Soomaaliya laga rajeynayaa inay soo bandhigaan ciyaaro aad u wanaagsan aadan kalsoonaan qalkan laakiin guush ay guldarada waxa xaq Ilaahay ka qortay insha Allah laakiin sanadkan saadaala u jeednaa inay soo guuleysan doono dooleyra macallimiinta xulka qaranka daa'irta ee kala ah Nuur Maxamed Amiin iyo Maxamed Bashiir Cali ayaa rajo weyn ka muujiyay xidigahooda iyagoo sheegay inay ka go'an tahay inay soo bandhigaan ciyaar wanaag waxaan aaminsanahay aniga tabartaas leh nimankaas inaan football la qaybsan karno insha Allah ta'ala koobka aan keenadan haduu ilaahay waxaan rajeynayaa dooleyra sanadkan inaan guul taariikhi ah ka keeno tartanka toddobaatan-jirada ee lagu qabanay waddanka Ethiopia. Soomaaliya ayaa ku jirta gruupka A waxaana ku weeliya wadamada kale ah Ethiopia, Tanzania waxaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta Mudane Cabdullaahi Sheekh Nuur Axmed oo guul iyo natiijo wanaagsan u rajiyay xulka qaranka daa'irta Soomaaliya haduusan jawi khaldin ciyaar waxaan filayaa in ay kaalin fiican gali doonaan hadii alla qadaro walow cimilada markaas lagu xisaabtamo hadii alla idmo dadaalka badan la soo geliyo waxaan filayaa in ay ka soo bixi doonaan ama ay goon doonaan insha Allah xulka qaranka daa'irta Soomaaliya ayaa 2018 markii ugu horeysay gaaray heerka ugu dambeeya ciyaaraha 17-jirada bariga iyo bartamaha Afrika waxaana gudoomiyaha kooxda Hagan Cabdiraxmaan Mursal oo ciyaartooyda xulka daa'irta u sheegay in laga rabo ku guuleysiga tartanka daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika ee ka dhacaya waddanka Ethiopia haddii raggii ka horeeyaan resumtiika ahay ee markaas ayaga final la geeyeen idinka markaan waxaan ka sugnaa waa koobka insha Allah ta'ala waa qaadootin xulka Soomaaliya ayaa ciyaarta furitaanka tartanka daa'irta 17-jirada la balansan dhigiisa Ethiopia oo ciyaaraha martigelinaya waxaana kulankan uu ka dhacaya garoonka Ibebe Bikala Stadium iyadoo waqtiga la ciyaari doono kulankan uu yahay 4 galabnimo ee xilliga geeska Afrika boqolkiiba waxa huwa dadkaas Afrikaantaas inaan ka guuleysnayno oo koobkaas aniga nool daqra ka soo dhabaxsan doono insha Allah hadii la idmo insha Allah waxaan rajeynayaa inaan guul la taaban karto